Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maalmihii la soo dhaafay sidaan wada ognahay, wuxuu dagaal ka dhexeeyay wadamada Ruushka iyo Ukraine, isagoo Ruushku qabsaday magaalooyinkii ugu waaweynaa ee wadanka Ukraine qaar ka mid ah, sidoo kalena kusii socda magaalada caasimadda wadankaas ee Kiev. Laakiin su-aasha aan isweydiinayno waxay tahay, ma laga yaabaa dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya inuu isku bedelo dagaalkii saddexaad ee adduunka? Maxaase saameyn oo ka dhalan kara haddiiba uu dhaco dagaal saddexaad oo adduunka ka dhaca? Kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Dagaalku wuxuu bilowday 23 bishan aan ku jirno, inkastoo Ruushku uu biratumanayo Ukraine dhowr bilood oo ka horreeyay intii dagaalku uusan ku qaadin. Laakiin hadda markii uu ku duulay oo dagaalku 3 maalin socdo, wuxuu qabsaday qaar ka mid ah magaalooyinkii ugu waaweynaa, isagoona kusii jeeda magaalada caasimadda ee Kiev. Waxaan isleeyahay arrinkaas waa ka dharagsantihiin. Haddii aan usoo laabano su-aasheena muhiimka ah, ma laga yaabaa inuu isku bedelo dagaal saddexaad ee adduun? Muxuuse saameyn yeelan doonaa? Dhowr dhinac ayaan ka fiiri doonaa. Marka ugu horreysa haddaan ka fiirino dhinac taariikheed, ilaa xad waxaan dhihi karnaa waa isku egyihiin sidii uu ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunka iyo midkaan hadda ka dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Sidoo ku bilowday dagaalkii labaad ee adduunka. Dagaalkii labaad ee adduunka intuusan bilaaban ka hor sanadkii 1937 madaxweynihii Jarmalka ee xilligaas Hitler wuxuu ku duulay gobollo ka tirsan wadanka Austria, wuxuuna ku andacoonayay xilligaas in gobolladaas ay degan yihiin dad Jarmal ah. Muddo kadib haddana wuxuu dhammaystirtay intii ka dhimaneyd Austria, wuxuu ku duulay haddana wadanka Czech ama Czechoslovakia xilligaa la dhihi jiray oo isku ahaa wadanka Czech iyo wadanka Slovakia. Kadibna wuxuu ku duulay wadanka Poland, arrinkaasoo irdaha u kala furay dagaalkii labaad ee adduunka. Laakiin haddii aan usoo laabano waaqac hadda jiro oon ka tagno dhinaca taariikhiga, ma laga yaabaa haddii uu qabsado Ruushka Ukraine kadib inuu dagaal bilowdo? Laga yaabaa inay isku dhacaan Ameerikaanka iyo NATO, maadaama ay ku hareeraysan yihiin wadanka Belarusia oo isaga la shaqeeya ama saaxiib la ah iyo wadanka Ukraine. Tusaale ahaan haddii aan tusaale idinka siiyo, saddexda wadan ee lagu kala magacaabo Estonia, Latvia iyo Lithuania, saddexdaba waxaa jooga ciidamo NATO ah. 4,000 oo ciidan oo NATO ah oo Ameerikaan u badan ayaa saddexda wadanba ku sugan. Laba ka mid ah saddexdaas wadanna waxay xuduud la leeyihiin wadanka Belarusia, labadaas oo kala ah Lithuania iyo Latvia. Haddii aan dhanka kala nimaadnana, Ukraine waxaa la leh laba wadan oo ka mid ah iyagana NATO oo ciidan Ameerikaan iyo ciidamo NATO ay joogaan, waana wadamada Poland iyo Romania. Romania waxaa jooga 1,000 ciidan oo ka mid ah NATO, isuguna jira Ameerikaan iyo ciidamo kale oo NATO ah, u badanna Ameerikaan, halka wadanka Poland ay joogaan 4,500 oo ciidan ah. Weliba ciidanka Poland jooga waxaa la geeyay xuduudda Poland iyo Ukraine u dhaxayda. Sidoo kalena waxay joogaan wadanka Bulgaria, 2,500 oo Ameerikaan ayaa joogto. Laga yaabee in ciidamadaas ishortaagan ee dhinac kasta iska taagan ay isku dhacaan, sidaasna ay urdaha ugu furaan dagaal saddexaad ee adduunka. Horta Ukraine iskuma qaban doonaan, maadaama Ameerikaanku uu sheegay in wadanka Ukraine uusan wax ciidana gey doonin. Biden siduu yiri, wax ciidana wadanka Ukraine ma gey doono. Qabsashada Ukraine ee Ruushka waxay kaga falceli doonaan kaliya inay cadaadiyaan oo dhanka dhaqaalaha iyo cunaqabatayna ay ku soo rogaan, laakiin dhan ciidan Ukraine kulama dagaali doonaan. Qaab saddexaad oo waxaa jira macquul gala inuu ku bilowdo, laakiin qaabkaas jaaniskiisu aad ayuu u yaryahay. Waxaa laga yaabaa markii uu Ukraine qabsado wadanka Ruushka inuu China isna ku duulo Taiwan, sidaasna isugu dhacaan Ameerikaanka iyo Chinesku. Ruushkuna maadaama uu xulafo leeyahay China, sidaas uu dagaalka ku soo galo, sidaasna uu ku bilowdo dagaal saddexaad oo adduunka ka dhaca. Qaabkaasoo kalena waa qaabkii Ameerikaanku ay ku soo galeen dagaalkii labaad ee adduunka. Iyagu kuma aysan jirin markii hore dagaalka, waxay soo galeen kadib markii Japan ay weerartay saldhig ay badda ku leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanku oo ku taala meel lagu magacaabo Pearl Harbor. Kadibna markii ay Japan la dagaaleen, xulafadeedana waa inay ku daraan oo Jarmalka ahayd. Aan usoo laabano su-aasheenii labaad, muxuu saameyn yeelan doonaa haddii uu dhaco dagaal saddexaad ee adduunka? Marka hore aan fiirino hubka la isugu goodiyo dunida hadda ee nuclear, hal xabo oo ka mid haddii meel lagu dhufto wadamada isdagaal ay isku dhuftaan, muxuu burbur iyo baaba geysan karaa? Haddii hal xabo oo nuclear meel lagu dhufto, nuclearkaas marka ugu horeyda wuxuu samaysanayaa wareeg kubad camal ah oo 2 kiiloomitir oo isku wareega oo bus ah iyo dab ah. Dabkuna wuxuu aadayaa hawada sare. Buskaas 2 kiiloomitir inta ku dhex jirta, 2daas kiiloomitir ee wareega wixii soo dhex gala waxay isku bedelayaan bus. Waxa dhan waa shiilmayaan, waana dhalaalayaan. Dad ha dhihin, dhagax ha dhihin, bir ha dhihin, waxaasoo dhan kuleylka dartiis waa ay dhalaalayaan. Markaa kadibna wuxuu sii day doonaa mawjado kuleyl oo isdaba jooga, kuwaasoo dhalaali doona wax walba oo u jira meesha nuclearkaas uu ku dhacay 13 kiiloomitir. Sidoo kale waxaa ka bixi doona leyr aad u weyn, kaasoo indhaha tiri doona dhowr saacadood ama aragga ka qaadi doona dhowr saacadood qof walba oo leyrkaas arka, una jira fogaan dhan 10 kiiloomitir. Sidoo kalena wuxuu sii day doonaa mawjado kuleyl oo gaari doona ilaa 500 oo kiiloomitir wixii u jira.
500 kilomitir wax walba oo u jira oo guba kara alwaax ha dhihin, caag ha dhihin, meelaha shidaalka lagu kaydiyo ama meelaha shidaalka looga shubta ha dhihin, waxaasoo dhan xataa bini'aadamku waa ay guba doonaan iyadoo wax daba la qabatiin kulaylka dartiis ayay shidmi doonaan. intaas aan kuu soo sheegana waa bilowga oo keliya, weliba laysma gaarin khatartii ugu weyneed oo dhan waa ay dhiman tahay. markii uu dhaca muddo kadib, qof walba oo u jira 10 kilomitir meeshii uu bahalkaas ku dhacay nuclearkaas ku dhacay, waxaa kasoo duldu'i doona ama waxaa soo gaari doona bus hawada kasoo da'aya. maadaama dhulka markuu ku dhaco bus aad u tiro badan uu hawada geli doono, waxaa qaadi doonta buskaas dabaysha. buskaasna qof walba uu kasoo kordo ama korkiisa taabto ama sidoo kale neefsada waa uu dhima doonaa, maadaama buskaas uu wato ishcaac. ma aqaan af soomaaliga sida lagu dhaho. ishcaacaasuna kuma sugnaan doono ama shucaac waxaan dhihi karno meesha uu ku dhacay keliya kuma ekaa doona, ee wuxuu gaari doonaa xataa wadamada u dhow wadankaas, iyadoo ay dabayshu qaadi doonto dhanka dabaysha u socota ay u qaadi doontaa. tusaale ahaan sanadkii 1986 waxaa ka dhacay wadanka Ukraine meel lagu magacaabi jiray Chernobyl inay qaraxday warshad lagu sameeyay jiray nuclearka, xataa nuclearka oo korontada iyo dabka laga dhalay ayay ahayd, ee midka hubka ma ahayn. suntii ka dhalatay horta magaaladaas waa laga kala tegay. suntii ka dhalatay ilaa waxay gaartay Sweden, waa wadan aad uga fog. intaasna waxaa gaarsiiday dabaysha. hubkaasna waxaa haysta adduunka 9 dowladood, 5 haysata hubka kiisa waaweyn iyo intiisa ugu tirada badan oo kala ah Ruushka iyo Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska iyo China, halka 4 kalena ay haystaan hub sahlan laakiin nuclear ah, waana Hindiya, Pakistan, Kuuriya iyo wadanka Yahuudda ee Israa'iil. hubkaas khatarta adduunka waxaa ka taala 13,800 oo madax, halka saameyntii aan kasoo hadlayo oo dhan ay geysanayday hal madax. bal ka waran haddii 13,800 la isticmaalo, adduunku waxaa la hubaa inuu baabi'i doono. 95% hubkaas adduunka la haysto ee nuclearka waxaa haysta wadamada Mareykanka iyo Ruushka, 5% ayay haystaan 7 wadan ee soo hartay. haddiiba uu dhaco marka dagaal saddexaad, ilaahay ma qadaree meeqa qof ama meeqa dada ayuu dili karaa oo uu galaafan karaa. haddii aan dib u fiirino dagaaladii lasoo dhaafay, dagaalka labaad ee adduunka oo kale wuxuu socday 6 sano, waxaana ku dhimatay in ku dhow 80 milyan oo qof, iyadoo dagaalkaas xilligaas uusan jirin hub nuclear, inkastoo dhammaadka dagaalka uu Ameerikaanku 4 xabo samaystay uuna ku dhuftay Japan. laakiin dagaalka xoogiisa intii ugu badan aan dhahna 5 sano iyo bar oo ka mid ah dagaalka intii uu socday, wax huba oo nuclear lama haysan. sidoo kalena lama haysan gantaalo balastiga oo qaaradaha isaga gudba. markii ugu horreeyay dhammaadka dagaalka ayaa waxaa sameeyay Jarmalka gantaal lagu magacaabi jiray F2 sidaan u maleynaya, waxayna ku dhufteen caasimadda Ingiriiska ee magaalada London. haddii dagaal gantaal balastiga aan la haysan, sidoo kalena aan la haysan nuclear oo dhammaadkii la sameeyay, uu galaaftay noloshii 80 milyan oo qof, intuu galaafa karaa dagaal la haysto 10 madax oo nuclear ah. waxay ku saadaariyeen khubarada dagaalada iyo waxaas in haddii uu bilowdo uu socod doono 8 sano, sidoo kalena uu galaafa doono nolosha in ka badan 1 bilyan oo qof. marka aan kasoo tagno sidoo kale wadamada iyagu isdagaalaya ee nuclearka isku garaacaya, saameynta uu ku yeelan doono oo ah inuu baabi'i doono, waxba kasoo reebi doonin. sidoo kale wadamada soo harana ee dagaalka aan ku jirin wuxuu ku yeelan doonaa saameyn dhaqaale oo xoogan, maadaama adduunka hadda dhaqaalihiisu isku wada xiran yahay oo dagaal kasta oo dowlado dhexmara uu saameyn ku yeelanaya dhaqaalaha caalamiga ah. tusaale ahaan hadda dagaalka ka dhex bilowday Ukraine iyo Ruushka, maalinkii koowaad markuu bilowdayba wuxuu saameyn ku yeeshay shidaalka, maadaama fuustada shidaal ay $100 kor u dhaaftay. sidoo kalena wuxuu saameyn ku yeeshay qiimaha dahabka. bal ka waran 2 dowladood oo isdagaalayda saameyntaas yeelatay, haddii 5, 6, 7 dowladood ay madaxa isla galaan, wuxuu saameyn xoogan ku yeelan doonaa dhaqaalaha adduunka. oo waxaan dhihi karnaa oo kusoo koobi karnaa inta isdagaashay ee nuclearka isla dhacda way dhammaan doonaan kuwaas. inta soo hartana dhaqaale burbur xoogan ayaa ku dhici doona, ama gaajo ha u dhamaadaan ama si kale ha u dhamaadaan. sidoo kale waxaan dhihi karnaa markii aan kor ka wada fiirino, dagaal saddexaad ee adduun oo bilowda, nuclearna la isku adeegsado, ilaahay ma qadaree wuxuu baabi'i doonaa dadkan dunida ku nool. laakiin u malaymayo inuu dhici doono, sababtoo ah dadkan caqli waa leeyihiin, ma doonayaan inay dhammaadaan oo iyagu ay gacmahooda isku baabi'iyaan. laakiin waxay ku xiran tahay in hal dictator oo waalan uu yimaado kadibna uu dagaalka bilaabo. laakiin waxaan ka mid ahay aniga dadka fogeynaya inuu dagaalka dhici doono. dhammaan wixii aad idiin soo sheegana waa fikrado, wax waaqic ah hadda dhacay maahan, waa wax la saadaalinayo oo laga yaabo mustaqbalka inay dhacaan, sidoo kalena inaysan dhicinna waa macquul. laakiin dadka dunida jooga kuma dhammaan doonaan nuclear la isku riday, oo nuclear uma noqon doono dunida gabagabadeeda. axaadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam siday sheegayaan, ama qiyaamu saaca sida uu u dhici doono islaamku leeyahay, wuxuu u dhici doonaa si ilaahay ugu talagalay. muuqaalkeeni maanta intaasuu ku egyahay. haddii ta markii ugu horeysa soo boqod channelka halmaami subscribe, like waa muhiim, siina shaagareetan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa amaana Allah.